shirkan jaraa'id ayaa lagu saxiixay lacag in ka badan 100 milyan oo euro ah oo ay ugu talgashay midowga Yurub dawladda Soomaaliya si loogu kabo miisaaniyadda dawladda. Wasiirka qorsheynta Maxamuud Beene ayaa sheegay in mashaariic kala duwan lagu fulin doono lacagta ay heleen. kulankan wuxuu ku saabsanaa mashaariicda horumarineed ee midowga Yurub ay siiyaan dawladda Soomaaliya. sanadkii la soo dhaafay ayuu gabadhi qorshihiisa iyo wixiisa ay socdeen waa lacag gaaraysa ilaa iyo 102 milyan oo euro oo loogu talagalay in ilaa iyo 3 iyo 4 sanadood gudahooda mashaariica lagu qabto 102 milyan waxaa loogu talagalay ilaa iyo 4 qaybood in lagu caawiyo oo dawladdeena iyo shacabkeena ka mid ah oo ku saabsan waxbarashada kor in loo qaado accesska waxbarashada ama education accesska in kor loo qaado in arday badan oo Soomaaliyeed inay iskuulka gaaraan. Dhanka kale wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan ayaa sharaxay taageerida ay ka heleen midowga Yurub. waxay shaqada ugu laxaadka badan nagala qabtaan dhismaha dawladda hadday tahay kobcinta dakhliga hadday tahay xoojinta hay'adaha dawladda iyo hadday tahay arrimaha loo yaqaano stabilizationka iyo xasilinta door laxaad leh ku leeyihiin oo dawladda si joogto ah u siiyaan ka miisaaniyadeed oo haddana ka mid ah package-ka hadda la saxeexayo 120 milyan oo euro ah 30 milyan oo loogu talagalay inay noqoto ka miisaaniyadeed oo la isticmaali doono 3 sano ee soo socota. Sidoo kale waxaa shirkan jaraa'id ka hadashay Mrs. Maryam Ferran ku-xigeenka agaasimaha guud ee wada shaqaynta caalamiga ah ee guddiga Yurub. And this year we have an envelope of sanadkan waxaa haynaa 102 milyan oo euro oo loogu talagalay taageeridda dhammaan dhinacyada horumarka ee isku xiran si loo xaliyo loona taageero horumarka dhaqaalaha dhammaan qaybihiisa. Taageeradan waxay ka bilaabanaysaa taageeridda hay'adaha dawliga iyada oo loo marayo waxa loogu yeero taageerada miisaaniyadda iyada oo lacagtan si toos ah loogu wareejin doono miisaaniyadda dalka. From support to state authorities via a contract on what we call budget support, so a direct transfer of funds to the budget of the country. Hawa Noor, Bila Media, Muqdisho.